بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن صاحبيال halka aad naga daawanaysaan waa bilicsan media aydu kugu soo gudbina wararka Soomaalida kuwooda ugu xiisaha badan saaxiibayaal. Qodobada aad warkeena ku maqli doontaan waxaa kamid ah dagaal culus oo maalintiisii saddexaad galay ayaa ka socda magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. dagaalkan ayaa u dhaxeeyay dadka deegaanka gobolada SSC iyo maamulka Somaliland oo halkaasi ku dagaalamayo. dagaalkani ayaa ka duwan dagaalkii labadii maalmood ugu dambeeyay ka socday maanta, iyadoo maanta fariisimo hor leh ay qabsadeen ciidamada SSC iyagoo guulo waaweyn ka gaaray dagaalka maanta. dhanka kale Somaliland ayaa baaq nabadeed markii saddexaad ku dhawaaqaysa iyadoo sheegtay in ay kula dagaalamayso urur ay ku tilmaamtay argagixiso, balse aysan muuqanin oo ay tahay dad xaq u dir ah oo ka dagaalamaya gobolkaasi. dhanka kale garaad jaamac garaad Ismaaciil oo ah garaadka gobolka Sool ayaa isagana sheegay in uusan marnaba dagaalka ay sii wadi doonaan ilaa ay ka baxaan deegaanada SSC ciidamada Somaliland. beesha caalamka oo ayadana ku baaqday nabad in lagu soo dabaalo dagaalkaasina la dejiyo xaaladana wada hadal iyo miiska wada hadalada iskugu yimaado. dhanka kale ciidamada Somaliland ayaa duqeymo culus ka fulinaya magaalada Laascaanood iyadoo oo magaalada gudaheeda laga dareemayo hubiyaal ku dhacay xaafadaha qaar oo shacabku qaar ay ku sugan yihiin. waxay kaloo sidoo kale beegsanayaan xarumo caafimaad oo dhanka cusbitaalada iyo goobaha cibaadada ee masaajidka. qodobkaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa saaxiibayaal ku daawan doontaan warkayga. ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan. aynu ku bilaabnay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. maalintiisa saddexaad waxaa galay dagaal u dhaxeeya dadka deegaanka ee gobolada SSC iyo maamulka Somaliland oo ay dagaalkani ay maalintiisii saddexaad galay. dagaalka ayaa maanta foodal isdaray iyadoo khasaaro ba'an uu soo kala gaaray labada dhinac, inkastoo dadka deegaanka ay sheegayaan in ciidamada Somaliland aad iyo aad loo jibiyay. waxaana laga qabsaday goobo hor leh oo fariisimo ay fadhiyeen labadii maalmood ee ugu dambeeyay ay ka dagaalamayeen. balse hadda galankii dambe ee galabta wuxuu dagaalkii ugu cuslaa ka socday gooja cadde oo u jirta Laascaanood 15 kiiloomitir, iyadoo ciidamada Somaliland ay magaalada duqeymo culus ku fulinayaan iyagoo hubka noocyadiisa kala duwan la isu adeegsanaya dagaalkani. dagaalkani ayaa ka bilaabmay kacdoon bulsho oo ka dhacay magaalada Laascaanood 15 sano ugu dambeeyay. magaalada Laascaanood waxaa gacan ku haynta maamuleysay Somaliland, balse dadka deegaanka ayaa marnaba diyaar u ahayn in ay hadda Somaliland ee gobolada SSC ay ka sii arrimiyaan. dhanka kale siyaasiyiin iyo waxgarad ka soo jeeda gobolada SSC ayaa ku baaqaya in Somaliland gibi ahaanba isaga baxdo gobolada SSC. waxaa hadlay siyaasi hore oo ka tirsanaa Somaliland balse hadda u muuqday in uu u janjeero dhanka iyo dadka deegaankiisa ku matalayay ayaa sheegay inuu marnaba diyaar u ahayn in dadkiisa la xasuuq. waxaa kamid ah gudoomiyihii gobolka Sool ama maayarkii gobolka Sool ayaa ku soo biiray ciidamada xaq u dirirka isagoo sheegay in uu ka gees dagaalami doono maalinta berita ah uuna hogaamin doono guutada ugu horeysa ee dagaalka beri qaadi doonto. dhanka kale garaad jaamac garaad Ismaaciil oo ah gobolka Sool garaadka guud ee gobolka Sool ayaa isagana sheegay in uu baaqna uu diray in ay Somaliland gabi ahaanba isaga baxdo deegaanada SSC, balse ciidanka xaq u dirirka aysan marnaba joojin doonin dagaalkan uu socon doono. waa sida uu hadalka u dhigay garaadka oo ka muuqatay aad u careysan ayaa sheegay in ay Muuse Biixi uu duqeymo culus uu amar buuxda uu asaga siinaya ciidanka ay ku duqeynayaan dadka maatada ku sugan magaalada Laascaanood. dhanka kale cusbitaalka guud ee magaalada Laascaanood ayaa jiifan tiro aad u badan oo dhaawacyo ah oo soo kala gaaray dagaalka socda iyo hoobiyaasha ay ku ridayaan magaalada Laascaanood ciidanka Somaliland. hay-adaha xuquuqul insaanka ayaa sheegay in dagaalka Sool ka socda magaalada Laascaanood ay ku barakaceen dad aad u fara badan. sidoo kale dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay gaar ahaan ergeyga gaarka ee arrimaha bini'aadantinimada iyo abaaraha ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishuur Warsame ayaa sheegay in 80,000 oo qoys ay ka barakaceen magaalada Laascaanood. dagaalka alleena hal la joojiyana waxa weeye istaagi maayo. muuse waxaan ku leeyahay maamulkaagu nabadna waa ku baaqaya madaafiicna dadkii ula dhacaya bal adigu labadaas waa fiji. maanta aan cadaynaya in Laascaanood waxa weeye saddexdii shay ugu dambeeyay oo maanta dagaal ka soconayo. dagaalkaasoo runtii dagaal
aan wax allaale wax shacabka reer laascaanood loo reebtay aan jirin madaafiic lagu garaacayo hubka noociisa kala duwan nooc kasta oo hata lagu garaacayo aan loo aabayeelayn goobiyaha caafimaadka masaajidadii guryihii shacabka kaalmihii shidaalka iyo dhammaan adeegyadii bulshada shirkadii biyaha iyo taangiyadii intaba dhulka la dhigay madaafiicda iyo hoobayaashaasna waxaa soo tuuraya oo dadka sidaa u gelaya oo duulaanka ku haya waa maamulka Somaliland wey waxaan adduunka u cadeynaynaa shacabka adduunka jooga u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa in meesha xasuuq ka socdo in aan dadka shacabka reer laascaanood ee duulaanka cad lagu hayo aanu hore uga hadalnay aweeye ninku hadduu taliyo oo taladiisa la qaadan waayo in waxa weeye marka xeeriye fadhaal isku qoyaan la yiraahdo garaajaamaco maxaa tala ama ah quraan uga hadalay waxaanu ciidamada Soomaaliland ka bixin oo guryahooda ka noqday waana laga diiday maanta halkaas maraysa salaadiinta soo hadlay ee media ka hadlay ee nin iyo nin aanu garanay waa mahadsan yihiin hadda doonaysa in hadal ka dhaco waa in ciidamada Soomaaliland ay oo ku noqdaan haddii ayna oo ku noqon waxaad ogaataan dagaalka lagu soo qaaday ee dadka lagu xasuuqay ee nooc walba hub kale ka dagaalamayaan waxa weeye ayna doonayaan in deegaankooda iyo dalkooda aan loogu talin ninna ma ogola gurigiisa in loogu taliyo waxaan maanta idin leeyahay haddii la doonayo dadkaasi inay wada noolaadaan haddii la doonayo dadkaasi inay daris ahaadaan haddii la doonayo dadkaasi in wanaag iyo sharaftii ay isu ahaan jireen ay ka dhaxayso haddii la doonayo abtinimadan iyo ehelnimadan jirtay haddeena jirta la doonayo waa in ciidamadaasi ay oo ku noqdaan dagaalka aan hala joojiyaana waxa weeye istaagi maayo golaha deegaanka ee maayarka ugu horeeyo waxaan leeyahay aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa dhammaan golaha deegaanka dadkan waa dadkii doortay haddii aad ka damqateen aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa dhammaan shacabweynaha gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn waxaan leeyahay sida aad isugu duuban tihiin ee aad midka u tihiin ee gudaha ilaa dibadda aad isu raacsan tihiin waxa weeye midnimadiina si adkaysaan dadkana waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad u sheegaya in dadka deegaanka degan ee gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn ama dhulbahantay ama fuqshini ama gabooye inay midaysan yihiin maanta taladoodu waa urursan tahay waa midaysan tahay meel bay taallaa meeshay taallana waxa weeye dadka dariska ee nabad kula noolaadaan deegaankooda iyo dalkoodana ay u madax banaanaadaan oo taliyaan waxaan leeyahay musabixi wuxuu yiri baaq nabadeed ninba hadda koor wuxuu yiri war ilaahay laga boqo wala wala taagtaagaya aan ku leeyahay maamulkaagu nabadna waa ku baaqaya madaafiicna dadkii ula dhacay bal labadaas waa fiji saaxiibayaal wararkaas wixii ka soo kordhay waa idin la socodsiin doonaa tan iyo kulantideena tan xigta waxa idin leeyahay sidaas iyo amaana